kulan wacdo wanaagsan idil ahaantiinba ay khiyaarta wada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan ku dur istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadha dalkaasi Itoobiya iyo waliba Djibouti qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalkaasi Djibouti oo ku dhawaaqday in ciidamo xoog leh oo dhowr boqol oo kun ah ay qoranayso ambaba ay ka dhisayso dalkaasi Djibouti waxayna noqotay sida dalkii Qatar oo waagu uu ku bariyay hadaba arinta ka soo yeedhay dalkaasi Djibouti iyo waliba ciidamada la qorayo ay suuragal tahay in ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ay halkaasi u huleelaan ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena saraakiil sarsare oo laga soo xigtay oo u dhashay qoomiyadda Tigreega waa TPLF ayaa shaaca ka qaaday in lagu wargeliyay inay isu diyaariyaan dagaal inkastoo aan loo sheegin deegaanka iyo meesha ay dagaalkaasi ku wajahan yahay laakiin waxaa lagu wargeliyay sida ay taliyaashu ay sheegeen inay u diyaar garoobayaan dagaal xoog leh oo lagu qaadi doono mid ka mid ah aan idhaahday ama xaaladaha qalafsan ee ka taagan dalkaasi Itoobiya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xoogaga faano iyo waliba ciidamada makalakayaaga dagaalkii u dhaxeeyay oo sii cuslaaday kadib markii dawladda ay ku ceebowday fagaaraha taasi oo keentay in xoogaga faano ay u soo jirsadaan 180 kilomitir wax ka yar caasimada dalkaasi Itoobiya Addis Ababa hadaba Itoobiya ayaa duqeymo xoogan waxa ay ku haysaa aan idhaahday fariisimaha iyo waliba ciidamada xoogaga faano inkasta oo ay faanadu iska caabinayaan dagaalada kaga imaanaya dhanka dawladda haddana waxaa jira khasaare lixaad leh oo labada dhinacba soo kala gaadhay barnaamijkeena ayaa daawadayaal kaga bogan doonta dhanka Soomaaliya kama manaan doonto barnaamijkana waxay la faaqidi doonaa saaxiibkay Dr. Shade oo asagu inta badan indhaha ku haya xaaladaha dalka Itoobiya guud ahaan Geeska Afrika Dr. Shade soo dhawow waan dhawaay saaxiibi waxaynu ku dul istaagi doonaa haddii bay ku samo ogol yahay waxaynu ku bilaabaynaa dalkaasi Djibouti bal nimankan maxaan ku dhahay TPLF iyo faanada Itoobiya inoo dambayso Djibouti waxay tiri ciidamo 100,000 iyo waliba kor u dhaafay ama ilaa 200,000 ciidamo gaadhaya ayaynu tababaranaynaa oo dhisanaynaa waa duri la isugu awood sheeganaya tiri Geeska Afrika waxaana la yiri sida hadda qoraladan arkayay waxa la yiri Djibouti waxay noqotay baa sidii dalka Qatar oo kale waagu ku bariyay iyadoo waxba haynin ba arto xoog yaro ma garanaysaa meelaha ay cagacaysan karto oo ciidanba haysanin ayay artay marka bal arintan bal noo faahfaahiba aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Frogodow arintani 24 saac la soo dhaafay ay warbaahintu aad u qaada dhigaysay dawladda Djibouti oo ku dhawaaqday in ay tababaranayso 100,000 oo ciidan ah oo difaaca dalka Djibouti loo magac bixiyay Djibouti waxaan ogsoonahay dalkaasi waqtigii xorriyadda qaatay ilaa maalinka maanta dal nabad ayuu ma dal burburay laakiin Umar Geelle oo meesha ay u ahayd meel maartay boqortooyo ah umba waxaad moodaa in yar wasagu isku ilaaliyo maadaama xaafadan iska yartahay umba hareeraha ka taagnayd laakiin maanta ayuu waa ku bariyay markuu arkay Geeska Afrika in la iskugu awood sheeganayo awood ciidan oo maartay dalal badan ay ku hanjabayaan inay dalal kale dib u qabsadaan ama guumaysi cusub oo ka reer Yurub ahayn ay dalal ku qabsadaan iyo Umar Geelle waa ku bariyay Umar Geelle wuxuu ku dhawaaqay in la tababarayo 100,000 oo ciidan ka badan hub casri ah ay soo gateen Djibouti ay noqon doonto awood military oo lagu soo degdegi doon ay noqon doonto Djibouti dadka ay qoranayso waa dad Soomaaliyeed ma aha dad meel kale la kana masheeyo caloosho shaqaystayaal ma dhalinyarada Soomaaliya loo faa'iideynaya baleeri kuwa qaxootiga Djibouti jooga kuwa maartay gudaha Soomaaliya jooga cid kasta oo diyaar u ah inay askari noqoto mushaar fiican la siinayo wala diiwaan gelinaya iyadoo qabiil loo fiirin aad Soomaali tahay bas askarinimada daacad ka tahay mushaarkaaga ilaa adoo askari dhaarti lagu waayo mushaarkaaga waa laga goosan laakiin waa dal gudaha Djibouti aad ku shaqayso ku dagaalada xuduudaha Djibouti soo xidha aad ku dagaalanta waa marka Djibouti tababarka ay ciidanka tababaranayso aanu dhan waa guul baan leeyahay dhanna waa dib dhac Djibouti ku yimid oo saacadan maanta la joogo 2024 inay Djibouti sidii Qatar maalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku ay dhahaan Qatar waan qabsanaynaa laga horoorinay Turkiga intuu soo baqay dhantay uu badiso Turkiga uu badi u ballan qaaday inuu difaaciyo xaqana ay ciidamo kale ay soo qorteen Qatar ba hal mar bil gudaheeda 300,000 askari ku tababartay adana Afrikaan oo dhan bay qoranaysaa Qatar iyo qoranaysa qabiil kale ama Carabina qoranayn waxay qoranaysaa Afrikaanka bis Nigerianka waxa yaacay Soomaali waxa ku jirta Soomaali xataa ku jirtaa askari reer Saladin sharciyada waa laga xaran wadan kama bixi kartid military baa tay xariyaha ku jirta xuduudaha lagu geenaya
reerka ay naagta markay fasax usoo tahay adoo iman sharciyada dhan waa la xarin qadar meel looga baxo male xuduudeeda xuduudaha waxaa jooga ciidamada wadaniyiinta adigu qofta difaaca dagaalka joogtaa afrikaan baata waad hubaysan tahay meelaan dalka uga bixi karin laakiin jiida hore furintana waa tegi sacuudiga waxay yaabeen wax wada gaangiisa oo murquinta leegan la yaabis oo afrikaan oo inta tababaran loo soo xidhay u duulaya iyo kuwa dabaabaha diyaaradahaas u kacay ay yaabeen sacuudiga imaaraadka xanuunta dib loo wax hadda qadar usoo degin sacuudiga waa loo yaabaa hadda qadarta usoo fiirso marka Djibouti sidoo kale waagu ugu bariyay markay tiri Ethiopia hadda waaba gobol anaga naga mid ah waka Djibouti waaga ku bariyay Ethiopia waxay irtaan waxba xeerinayn wada Soomaalida caadi ahayd ee iscunaysay ee looba gal waraabahayd yaba dabacdan ay qabsato Djibouti ma wala luqan uma la luqanayso mangista xilmari ba wuxuu yiri meelaha Ethiopia sideedaba ka gooday ee Faransiiska iyo waxyaabahan hadda aan lugta uga kaadinayno waxa weeyaan bukule waa anaga wuxuu kule waa qayb yar oo anaga naga dir dhabay kamid tahay bukulahayba Djibouti baha wakaas marka odayga Umar Geelaha hadda wasna waa ku bariyay hadda qayla dhaan booda qayla dhaan uu leeyahay ciidamada lagu qoraya wasaaradda gaashaandhigga la howlgeliyay tiimaliyada la howlgeliyay dhan kasta dawladda dhan la howlgeliyay oo la yiri waa inaad kharashka adduunka aad ku bixisaan inay Djibouti mar la yaabo waxay tababar ku soo xidhay sida ayax inaad tababar soo xidhaan oo la garan waayo oo shiinays loo malay waa inaad tababar soo xidhaan bay tiri ciidamada cid kale loo tababaran maayo cid loo tababaranayo waa Ethiopia sidii iska difaaci leh uma loo tababaranaya taas waxaan xas Sheekh Maxamed Balreyn talaabadaas qaado oo dhaho maanta intuu xiriyo waa weyn ka gudaha Soomaaliya oo dhalinyarada Soomaaliyeed looga bilaabo $1,000 ta $1,000 hadii la dhehla waan huba karaas asad ila dir dhaba jooga $1,000 ba ma inuu soo shaqo tagi lahaa $1,000 ba ma حسن شقدور دليرة سوالت ويارو ليه لها شن بقول محن كلها شن بقول عسكري ولا شن بقول بيش يسوي التلفون كسوق عيسى وأنا على ليلها دليرة يسجين له أي يسجين له ده هو شوي ويوسع الله لكن مال ليلة ها ما يعرف بقول كونوا عيدنا بهالمر اللي هنا لو تبر له صحربة ونوم البابا مد البعض وضمنا تركيا إيرتري وضمنا كتبر كوفي عن يبقوا يرى له الصومال إذا ملوا سعودنا أي كان ديار عند الخوي ما ملوا السعودان بقى واللي قبل ما قشر رقاق رقول نكى ساينتس محن كده نكى محن كده لها وساينت هايو ما كعدوا قبل ما قش وجيله مركو فريست أما ضد كلولي ده أنا قولوا ما نهان جرني ها جيله ندخل جري مركده أنتوا تشيلوا ذي أبارضوا دعان تهاشوا حتى يبقى كافريستو ما جرني ساي واحد قاعدين وده أفريستو هذه جيله حتى بحال الربع جيله مكتوب حلوك يا أطباء لوك يا موتى لبا أطباء بحاليها يا من الشفك اللي يا من الهوس اللي أنا قلين كلا قل أفرن باب بتبقى جيسها قبل يعني هل يا قاضي خير والله قاضي والله ما الله والله قاضي جرا يده جيسهم بعد ما قرنا سال لبا يا حاجة لبا وبقبنها نين سينتو قبن نين سينت قبت كرب وشي ده سينتو هذا كرب وحق يسقر markii ay meelaha boodin ka laga galo ka markii la dhaho baasha la waxeeyo way boodi laakiin hada adigu sayntii hay sameey kadi ma kacayso marka Soomaaliya siyaasiyiinteeda iyo kuwan haata xukuma yaa masiibo ka in ka soo isla dhaamaan kuwa saxsayn tahay ma farmaajo ugu dhawaayo wuxuu rabay inuu ciidamada tababaro inuu ciidamada iyo mudamaad barnaamij yar fahansanaa ciidamada isku faanay